Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada horsocod media aad baro ka daawataan barnaamijyo kala duwan. Barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa falanqeynta fanka aan kusoo qaadan doono fanaanin ka mid ah kooxda xidigaha geeska oo show ku qabsan raba magaalada Muqdisho. Intaan barnaamijka u gudagalin fadlan haddii aad ku cusub tahay janaalka horsocod media fadlan subscribe saar ee la sii wadaag asxaabtaada waadna ku mahadsan tahay sidaad marba noo dhiirigelisaan. Fanaanin ka mid ah kooxda xidigaha geeska ayaa lagu wadaa inay bandhig faneed ku qabtaan magaalada Muqdisho. Fanaanin ka mid ah kooxda xidigaha geeska ayaa bandhig faneed aad u weyn ku qaban raba hotel ku yaala magaalada Muqdisho magaciisa yahay Peace House oo ku yaala magaalada Muqdisho. Bishii June ee 2019 waxaa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay fanaanin ka yimid magaalada Hargeysa oo ah magaaladii fanka. Fanaanintaas oo ka mid ah kooxda xidigaha geeska fanaanintaas ayaa gaaraya ilaa iyo 4 fanaan oo kala ah Barwaaqo Qalanjo, Saalax Carab, Xamdi Qaali iyo Khalid Kaamil. Fanaanintan ayaa doorbiday inay qayb ka qaataan ololaha wacyigelinta bulshada ayagoo bandhig faneedyo ka sameyn doona magaalada Muqdisho. Fanaanintan ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin inay bandhig faneed ku qabtaan caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa ugu mahadceliyay fanaaninta ka mid ahaa kooxda xidigaha geeska inay show ku qabtaan magaalada Muqdisho islamarkaana ay muujiyaan sida loogu midaysan yahay fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Warar kale ayaa sheegay in aan weli la xaqiijin inay magaalada Muqdisho kusoo wajahan yihiin fanaanin kale ka tirsan kooxda xidigaha geeska aan weli la shaacin magacyadooda. Showgan ayaa dhici doona bishan aan ku jirno 15 nagu soo wajahan. Sanadkii 2015 ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa lagu xiray 4 fanaan oo ka mid ahayeen kooxda xidigaha geeska. Fanaanintaas ayaa kala ahaa Xamdi Kuweyn, Nimcaan Hilaac, Maxamed Axmed Bakaal iyo Cabdiraxmaan Ciidiid Cabdi. Markii magaalada Muqdisho ay show ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa lagu diray inay tahay hooyadii fanka, laakiin waayadii ugu dambeeyay waxaa hoos dhac weyn ku yimid fanka magaalada Hargeysa.